السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتا iyo walaalada ku xiran channelkeena Maxamed Oosil soo dhawaada mar kale iyo muuqaalcusub kale maalmihii ugu dambeysay channelka waxaan ku muxaadarooyin maadaama lagu jiro bil barakeysan bishii Ramadaan in xagga wacdiga iyo waanada loo bato waxaan ku waa waxa aynu waajibkeena saaran weeyay walow kana hal qof ama laba qof ha dhageystaane anagoo soo wadana wacdiga iyo barnaamijyada diiniga bisha Ramadaan fadliga bisha Ramadaan awgeed walaalada qaaliga kulli inaad ogtihiin mooyee waad ogtihiinba maadaama aan channel ku bixi doono ama safri doono safarkaas waxa igu helinayay ma safar baan baxayay aniga iyo walaalkii Ashwan Ismaaciil safarkii isagoo diyaar u ah oo baxaya ayaa waxa ku yimid hawl yar baa ku soo baxday sida caadiga ah qof markaa hawl ku soo baxdana labada tafadud buu qaataa markaa safarka waa shawani raacay safar aan imika halkan idin sheegna maahay waa safar markaan tagno insha Allah idin sheegi doono Ashwan safarkiisa oo diyaar ah hawsha ku timid darteed buu baaqday una ii sheegay si wanaagsan waxaan ku saaxiib caadi safarkii anigoo kaliya baxaya halkan tag doono gadaal baa ka ogaan doontaan insha Allah ta'ala haddaba Ashwan Ismaaciil caawan ka xaraamaysanaya ama barnaamij baan ka soo doonaa Brankia waxaan ku oran doonaa Ashwan oo adigu si waxaan iska dhigaya qof ay ka go'an tahay serious ka tahay de marka bal Ashwan iyo waxaan eegnaa feelingkiisa ama dareenkiisa iyo siduu wuxuu dareemayo iyo Ashwan sidoo garanayay xoogaade bal inuu xanaaqo inuu garanayay yiraahdo waan ku sheegay maxaad weydiinaysaa iyo waxaan ku dhacay xoogaa yara ii damqaade yiraahdo walaalka kan calaacalayay bal insha Allah ta'ala in eegi doona waan garaacaya hal isla maqlo سنتشك وعليكم ترسم تانك وعين نيجينا إن شاء الله تعالى سنصعدنا يسن يا بلوحة نصوينا إن شاء الله تعالى لا الله ضيق غلط ما يا حبايبي اللي يصير Ashwan Ismaaciil boqorka boqortooyada in the building saaxiib qaali iyo xaaladada ka war waa nin la waayay noqotay ila shalay isminaaray saaxiib haga ku qarisay والله روبك داية وحياة كده متمية واحد لا ضاد بقى عادي متى والله إنه على صوته داتكو غادي ما يكلي أنا حرقت ذي كلمتي دي أنا حرقت بناي لا ساعة شو كده يحمل كريدني هذا وروح بقولي واحد كوسو قراعة ده وان كوشة صاحب عاو واحد بحيا لبيتون كبيني وكولي عاو لبيتون كبيني وان بحيا سفر كي عاد قهدي دنيو والله صاحب سفر كلي بحدي صاحب واسكت دريم ساعة أضيق جسد يقف إنه سفر إنه قف إسراع مع أصحابتي ساعة مدرسة كده إنه قف إسراع بين تبضفي عن وصي سفر كشيء كأي سفر كبور نقضى سفر بلا أحد بقولي عاج سيد يا سفر قف ودريم دي أنا سفر كي واحد كان يجيني جوامين ميس هذه مرة صاحب قاعد سفر كي مرة ضد يجي هردين صاحي يقومين ميسي سفر كي حليا حليا بحية يا وقت كان بحية وحاضو حبا كان مجني بيجسنيو والله صاحي برتا عاو أديد صاحب عاو أديد والله أنا واحد كوري وحن وصاحب أنا على الحماد يقوى هنا عاو بحية صاحب ده والله وين بحي أنا على حمك وين كل ورك عضني والله هم في أنكوري هم في يجري صاحب أنك راعه
maadaama waa shuban kaa haray saaxiib isla caawi ilaah haduu ilaa saaxiib aan ku raaca anna waxaan ku uri saaxiib iska joogaan fi wadada adigu diyaar ma lahayn saaxiiba hay saaxiib dhegeyso marka waxa wadada aan ku raacaya barasa صح وانا كنت مسرعنا صاحب وحيت انا فرحان والله ما شاء الله هذا انا وين صاحب كل شيء في عمل بالكمبيوتر يعني ولا انا قاعد هي او شاطر كده كان حتى والله انا مش عارف مره من انا دورت عشوان دورت الرق صاحبه وانا يكون سيده عاديه ده رجل markay saxaab yihiin wax ka soo yimaada ama dib iyo dheef wala wada qaybsaday anu safar weligii Allah xitaa yiraanteeda dan safar baxayo kulan qof raaco ama yiidan raaco ama qof aan raaco safar aan qof aan la socon ma bixi jirin ba ani fahmin jirto wallahi bilaa inta kale hada ma ku sheegan quraata safarkii hawada laga soo dhaxshay waxa la sii u sheekanay ninka dadka kale oo raacaya waliiro wanaagsan dad qaade wallah sabti baa ku baqay adana ka wallahi ku dambeeyay inta fursad ay dad wani ku soo sheegan la soo kaasoo ورعاوي حتى يستي والله عاوي حتى يستي ويسوق راعي يلي صاحب ما دام شلون كاري صاحب أنا كراعي أصلا كل صاحب لما لصاحبه أحنا كل صاحب اسكت شوف كل يستي في الكيسة صاحب كل دي والله تشقبنا أنت horta saaxib caawa daan baxo caawa marka ilaahay nabad geliyo saaxiib caawa markaan baxo hada wa salaam saaxib anigu dib kula soo hadlay saaxib dib kula soo hadlay wallahi caawa anigu kaan niyad xumaan baxaya saaxib dib kula soo hadlay saaxib in nabad gelinayo صعب ما والله صعب عاون كراحنا ساعة واللي مش مساعد أوجه كشيء لا ديشان إشكال أنا توم إشكال أنا أتكلم عن قدراتها أنت هذا شو كذا صاحبه وأنا ده هذا شو كان وأكاد دوري من صاحبه كله بالله ما ينادي من نسي والله صاحب إمسى عشان قد وقتي خواني هاي صاحب إن شاء الله هاي صاحب إن شاء الله يسوي دعاء ما مر هذا يوترون هذا يماني صاحب عروش كاس الدنيا هذا ده يسوي دعاء إن شاء الله صاحب دم صاحب دم إن شاء الله خير بينهم صاحب ما يصاحب دي ماله أحنا نقول إن شاء الله وخلاص والله هي صح وذاك السندويش شو حكى دعاء نيكي عشوانها ساسو قبتي وكل صاحب إله يقول عشان ما ذني مك عادي هين وضي واحد يقول نحرنت أي واحد يقول كرك كان على كوديان كيسي ودركسين idinku waxaan rajeynayaa in idin soo duceysaan safar bangaliya kulli dadka igu xiran ama dadka channelkeena ku xiran dad walaalaha inuu wadanahay safar maaha waa safar dhow kulli deegaan kamida deegaamada Soomaalidu ma tagi doonaa laga yaabo inaan muuqaalo idinka soo sameeyno kulli hawlo iyo waxyaalo ay gooniyo tagaya laga yaabo in muuqaalo idinka soo sameeyo laga yaabo inaan muuqaalo soo sameeyo labadaba marka insha Allah taala sidii khayr from bay noqon doontaa hadii hawshan u tagay hore igu soo dhamaato waan idin soo gelinayaa muuqaalo qurux badan deegaan qurux badan meel qurux badan insha Allah waan soo duubi doonaa waxaan idin tagi doonaa sidaas iyo subscribe channel ka saartaan like gareysaan muuqaalka sidaas iyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh